laba nin oo saaxiib ahay 1994 marka kamarita baranay oo nin dhoofay ninna dalka joogo labadii nin baa gurigii walaashay oo igu xiga yiri oo faaruq naga kire aan iskaga qayl dabadeedna waan ka kirey asxaabteedina way guursadeen bari hore aruurtoodu waa aruur waaweyn qaar baa aruur leeyahay adna weli mad anigu teesoo markaasaan guursado markiina 7 sanadood baan gabadhaas qabno waxba ma dhalin dabadeedna si kaftan baanu ku niri labadii nin mid kamid ah adaa habla dhalayo adiguna cidadaas aad ugu eegaysa anagu hadaanu habla dhalay bari horaan ku siin leh sumurdaanaaba mid ku siiyay ma mid baad siisay waabanu kaga dhabaynaba kaftankii inantii reena adeerka waxa saaxiibkay dhalay ayad guursatay yaan guursaday gurigu waa dhaxal markaa hooya ka dhimatay waxaan ku leenahay 4 nin iyo gabadh dabadeetana gurigii baa la dhaxlayaa dabadeetana $940,000 baa gurigii u noqday 9,000 baan leeyahay anigu 40,000 mali hagbadaan galay sirta noloshu xoog ma waxaynu raadinayni $1 milyan iyo barashkii dawladda hoose wax ka hooseeyaan ku baraya tamaandhadood hagbad yar ka gasha waxay soo socdaan kaaga sheekeynaya ma sha Allah hagbadii yaraaba midba sidan 9kiisii kunu siinay ragii inantii 4 barkeedii u siinay wuxoodii waan siiyay gurigaana yeeshay haddana halkii kuma joogsanay ninkii ii sodog ahaa ayaan jiingad laba maqsina $2,500 ugu dhisay ma sha Allah haddana halkii kuma joogsanay ninkii kamarada ay baree saxafiga ahaa ee walaalka ahaa ninkii odayga ahaa guri 24 mitir oo qasri ah ayaan u dhisay ayadu dhistay kaygina waan kala gooyayo qaybna waan kareeyay qaybna ana kala inantii labada kunina siiseen walaalahay markii hore iska joogtay ayaa taa imanaya ti gurigii baan u goglay guri dhammaystiran baan u goglay waxaan u dhami tamaanadan yar booshirigana ka dhashay ayaa ka imanaya meel kale wax inagama soo galaan dabadeedna guri dhammaystiran oo wax loogu baahnaa oo dhammaystiran gurigayga qayb baa dukaan loogu talagalo dukaanna waan uga sii furay camiran kaagi kalena waad haysataa kayga waan haystaa inantaan u furaya inantii lacagtayna siisay ayadu abaalgudaysa iyadana maasha Allah waxa maanta inoo shaqeeya 5 qof oo mushahar inaga qaata oo tawagal mushahar siiya maasha Allah 5 qof meheradu waa 3 booshari ayad leedahay sirta noloshu xoog maaha wuxuu oran jiray Allah u naxariistay ismaan gacalo dhigta xeesha dhiga lacagta dhaqan maalka dhalinyarada joogtay ubad ilaahay ma ku siiyay ubad gabadhii ilaa siiyay bishii u horeysay ilmay caloosha ku qaaday ma sha Allah 3 wiil iyo gabar bay haysataa taladaadu maxay tahay taladeedu waxay tahay hortaniyo nolosha kolba halka ka abaarto choice-ka adiga iska leedahay inta dhalinyarada tahay waliba marka dambe waqtigu iska xadidmayahay inta dhalinyarada tahay nolosha halka ka adeegsato waa daadi marka doonayso inaad suldaan baba samaysato reerka boobto oo suldaankii ka garab samaysato mid ku qabsato waad kari kartaa waa shaqo lagu shaqaysto maanta hadaad reerka xiijiso istraada xildhibaan doono waad kari kartaa hadaad ganacsada doonayso inaad noqoto waad kari kartaa saxaafadda markii aan bilaabayay ninkiiga weynaa wuxuu igu yidhi dawladda ha u shaqaynin saxaafadda dawladda ha u shaqaynin kamarada warta uu diiday in badan buu diiday in badan marka waan codsaday waxaan sameeyay ku jannu ka hortaagan yahay saxaafadda Soomaaliland adduunka maaha ta meelaha kale maaha saxaafadda Soomaaliland lacag laga helo maanta wadi wareysanaysaa dadkuna bilaash bay kugu daawanayaan meel wax ka soo galiyaan ma jirto fanaankuna waa kula mid maanta oo dhan buu heesaya abwaankii sameeyay mulaxamkii iyo musiciankii tuma iyo wax la wixii mid qadadii maalinta wiilay aduu xirfadlayaasha adduunka lacagta ugu badan qaata Soomaalida way halka way ku liitaa qaadka iyo sidii dhibaatadiisa iyo waxa ka soo maray iyo waxa dadka kula talinaysa maxay tahay barnaamij dheer buu baahan yahay oo laakiin soo koobo in fact hadii marka maalmihii Ethiopianka iyo Soomaalida isku dhaceen oramadu qaadka waa tii la waayay annaga dareenay jeebkayga dareemay oo shiriyada dareemaya isbitaalada dareemaya meel walba waa laga dareemay lacagtii qaadka la siisanayay dalkay dib u gashay wato koowaad dadka qaadka cunaana oo dadkii wax soo saarka lahaa hadduu makaanig yahay hadduu kuug yahay hadduu darawal yahay hadduu wastaad yahay dadkii lacagta soo saarayay
وهي dadka qaadka cuna wax soo saarka dadkii wax dhigan lahaa ee maanta dhaqaaluhu ku kobci lahaa dadka maanta qaadka cuna nin iyo dhif bilaa camal ba iska cuna laakiin dadkii wax soo saarka lahaa waa dadka qaadka cunaya haddaan policy laga yeelan oo siyaasad laga sameyn waxaan u malaynayaa talo waxba mar hadduu qaadkii magaalada ka buuxo la helayana ilaashada ugu badan imaka secretary aan ka sheekaynaya inkastoo aan dhakhtar secretary yahay niman baa sheegi jiray dhaqaatiir waalidu noocyo badan bay leedahay mid waa mental heredity oo la isku dhaxlaa mid waxa weeyaan muxuu ahaa mental shocks oo qofku naxdin baa ku timaada mid waa mental disease qofkan maartay xanuunaa keenay ma garatay mid waa mental drugs imaka labadeenu qaylayna maanta hadaynu xashiishad cunno ama khamri cabno waa waalanayna waalida inaga doonanay dalkeena ku badanna waata waa waalida gacmaha lagu doontay iyo too much ku dabadeetana anu waan qoslaayo waxa lagu leeyahay percentage baa qaadka laga qaaday hadana waalida wax lagaga qabto maxaad maadinigaba yareysid maadinigaba waaraysa marka horeba marka ala kulli xaal waxaynu anigu ku talin lahaa dadka maanta intii qaadka ku fadhidaan ha ka kaado inta ku soo socotaan ha iska deyso qaadku nijiida badan qofka noloshiisa saameyn weyn buu ku leeyahay ku yarbaan maalin dariiqa ka soo baxay waxaan ku wari adeer ma ku xalaaleeyaa ina yaroo aan silmala waa 5 jir 6 jir meelaha sul maxaadna xalaaleyn hooyaday iyo lacag baan haysatay maxaa dhacay ma ana aaba joog aaba wuxuu helaba qaad buu ku cunaayo hooya meelaha wax kolba nooga soo amaahata waa nolosha reality-ga maanta noloshinkeena ugu badan qoysaskeena la dhaadhacay waa agoon ma dhaan baa leeyahay raga qayla maanta waxa lagu tilmaamaa qof dhintay oo nool agoon ma dhaan qof qoyskaasi waa agoon waxa ma dhaan way nolosha dhan baa xiriir ku meeshadeena dalkan waa qaali oo wad ogtahay wax waliba waa qaali nolosheen nolol qaaliyan ku nool marka anigu tala ahaan waxa ku talin lahaa qaadka siyaasadda laga yeesho xukuumadeed qaran mooyaane oo waliba de Ethiopia ay la kaashaneen ma haynagoo kaliya choice-keena ma xashiishada iyo khamriga iyo waxa Ethiopia iyadu lacag kaash oo adag bay qaadataa wallahi iyada lafteeda dhib ku haya iyada lafteeda dadku sida hadday u fikirayaan iyada lafteeda dhib ku haya lacagtan Ethiopia iyo Somaliland iyo Kenya taaliyo waxan waa jaaro waa isku wada mid dhaqaaluhu waa isku wada mid bulshadeedu hadday baaba'dana hadduu Ethiopia ku imika baaba'o Somaliland way baaba'aysa darab awd meela noqdo Ethiopia darab awd ka xagu tagay hadduu maanta Somaliland markay darab awd meela noqoto Ethiopia bay gelaysaa rabshaysa marka noloshu isku xiran tahay siyaasad cadowgeeska Afrika hadii laga yeesho oo dadka lagu jiheeyo oo issue gobol laga dhigo issue gobol Kenya inaga iyo Ethiopia yamanta badan saameyn nagu yeesho keedo waxa weeyaan de wax uu baahan yahay jinti badan iyo aqoon yahan iyo siyaasiyiin iyo de wax uu baahan yahay wax badan waa aafad maanta dhibaato aad u weyn oo de heshabu ka mid yahay bahalku ma garatay aad iyo aad marka aad iyo aad baad u mahadsan